هاي بسم الله الرحمن الرحيم. دقمة عبد العزيز قبل كبنادي إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم نحرسته مواطنين صوماليين كنا في ماي قرح أي قرية أرجع حصلها وسوا أبابولين قلبتي شمتي يسقال دقيقة أما كوي طبنكي يسقال دقيقة أي قرح اسمينا منها الله استعمالي قاري اللي قصوا بيحشوا والحاق قرحة iyo argagixiso isla markaasna rabtay inay khasaare geysiiso dad shacab ah oo ku jiray hotelka Iliad ee ku yaala degmada Cabdicasiis qaraxa markuu u dhacay argagixisadu gudaha ayay u galeen hotelka waxa meesha ku dhintay khasaare dhimasho ayuu qaraxu keenay oo gaaraysa 16 qof 12 qof oo shacab ah iyo 5 kamid ah naftihalagayaasha ugu tala galay inay naftooda iyo nafta shacabka Soomaaliyeed ku kumaadaan sidaas oo kale waxa meesha ka dhacay dhaawac gaarsiiyay ilaa 13 qofood oo goobta ka agdhowaad dadkaas dhaawaca iyo dhimashadu waxay isugu jiraan shaqaalihii hotelka iyo dad shacab ah oo goobta ka agmariyay iyo argagixisadii iyagu soo abaabulay qaraxa inuu meesha khasaarahaas ka gaarsiiyaan saas oo kale waxaa jira burbur hantiyeed oo soo gaaray hotelka iyo gawaaridii dadka shacabka ah oo jidka ka agdhowaa agaarka mariyay howlgalka oo xoogaa yar dheeraaday wuxuu soo gaaray ilaa 10kii fiidnimo sababta uu nolol dheeraadana waxay ahayd in aan yareyno isla markaana aan ka taxadarno inuusan khasaaruhu intaas sii dhaafin oo khasaaro badan meesha uusan keenin hotelku wuxuu ahaa hotel dad shacab ay isugu yimaadaan oo loo soo shaah tago marka ujeedka argagixisaduna kaliya wuxuu ahaa inay khasaaraha ummadda kordhiyaan waxa hotelka laga badbaadiyay dadweyne gaaraya ilaa 300 oo qof oo isugu jira dad shacab ahaa iyo shaqaale dawladeed oo hotelka ku sugnaa aad ma santiin assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh argagixisadu kusoo qaaday hotelkan dad Soomaaliyeed oo ganacsato ah oo jecel dalkooda inay horumariyaan ay halkan ka dhisteen weerar sida uu sheegay weerarkaas oo saacadood gudahood ciidanka amniga guud ahaan laamaha amniga isku wada jira iyo booliskaba waxay si wada jira soo afjareen weerarkan soo qaaday dad badan oo shacab ah oo hotelkan u yimid inay waqti ku qaataan baa halkan ku jiray oo laga badbaadiyay aad iyo aad baan rabnaa inuu ku hadlayo gobol banaadir ahaan annaga iyo maamulka gobolka inaan uga mahad celino ciidanka sida wanaagsan oo markiiba ay uga jawaabeen gurmadka degdega ah shacabka ay fidiyeen argagixisadu mar walba waxay isku dayaysaa inay qalbi jabiso shacabka magaaladan degan oo runtii marxalado adag soo maray u soo dhabar adeegay xaalado intaan ka adag waxaan ognahay muddooyinkii ugu dambeeyay inay yaraayeen weeraro noocan oo kale inay fuliyaan ciidanku mar walba kuwa intaan ka badanna waa badbaadiyaan waa ogtihiin muddooyinkii ugu dambeeyay ma jirin weerar noocan oo kale runtiina waxaan uga tacsiyanayaa sida hadda noo sheegay dhimashadu waa 13 qof oo ay ku jiraan 5 qof oo ka mid ah yihiin nimankii weerarka soo qaaday argagixisada ahaa iyo dhaawac 13 ah oo shacab ah dhaawacyadana runtii isbitaaladan ku booqannay oo maamulka gobolka Banaadir booqday wixii aan la qaban karno gurmad ah diyaar u nahay inaan la sameeyno laakiin hal mid aan ka baran karnaa waxay tahay cadowga inuusan wax naxariis ah u hayn dadka magaaladan degan ayaguna ay u diyaar garoobaan sidii mar walba dhici jirtay inay isdifaacaan annagu hadda waxaan ku jirnaa waxay tahay waa isdifaac mar waa dhacaysa oo nalaga soo hoos baxo oo laamaha amniga iyo ayagoo dadaal ku jira ay marmar wax ka soo hoos baxaan laakiin sida ogtihiin qaraxyadan waxay ahaan jireen mid routine bil gudaheeda waxa dhici jirta 5 qarax oo noocaan 5 meel oo la mid ah la weerari jiray marka hadda annagu waxaan ku jirnaa dadaal ciidanka booliska iyo laamaha amnigana waxaan uga mahad celinayaa intii uga dhimatay ayaga laftirkooda dagaal ay ku jireen waa uga tacsiinaya guud ahaan shacabka magaaladan deganna waa uga tacsiinaya gaar ahaan ganacsatadii hotelkan lahayd oo sida quruxda badan u maalgashatayna waxaan u soo jeedinaynaa inaysan ka niyad jabin niyaddii ay dalkooda u hayeen waa maasanta shaqaalkan oo sida gardarrada loo sida warbixinta ku dhegeysateen waxaa meeshaan ku shiiday 12 qofood oo Soomaaliyeed iyo 5 ka mid ah kooxdii argagixisada ee weerarka soo qaaday argagixisadu mar walba waxay isku dayaan inay si doqonnimo u gaadaan dadka shacabka ah dadka dhibaatadu gaartay intooda badan ay dad shacab ah oo waxba galabsan oo halkan ku asriyeynayay laakiin argagixisadu mar walba waxay ka fikiraan ama ay maskaxda ku hayaan dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed oo dhibaato iyo qaraxyo iyo balaayo kala soo daaleen
laakiin taas mana niyadjebinayso shacabkana ku niyadjebi doono waxaad ogtihiin meelo badan inay qarxiyeen meel walba ay qarxiyeen sidii si ka qurux badan loo dhisay tanna waxaan rajaynayaa inay sidii noqon doonto haddii la idmo iyagkay shacabkuna ay is arki doonaan intaa kadib sidii hay-adaha amnigu sheegeen waxay dadaal dheer u galeen oo ay badbaadiyaan shacabka waxay ka soo badbaadiyeen shacab fara badan oo halkan joogay oo isugu jiray bulshada qaybyada kala duwan carruur yaryar dhalinyaro iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada amniga oo mar walba u taagan inay badbaadinta shacabka kana hortagaan kooxdan caadaysatay inay burburiyaan dhismayaasha qurxoon ee amniyadda shacabka intaa kadib innaga maamul ahaan waxaan ku baaqaynaa shacabkana ku baaqaynaa inaysan niyad jebin annaguna ku niyad jebi doonna haddii alla idmo waxaan si u soo jeedinaynaa in laska kaashado amniga oo lala shaqeeyo hay'adaha amniga kooxdan waa aragtiin inna taarged uma ahan waxaa taarged u ah shacabka soomaaliyeed dhammaantood hantida iyo wax walba oo hay-adan lagu faano ayay rabaan inay jejebiyaan waa shayaadiin caadaysatay inay shacabkan iyo magaaladan dhibaateeyaan laakiin waa loo soo jeedaa shacabkana waxaan u rajaynaynaa inay arrintaas ka foojignaadaan lana shaqeeyaan hay-adaha amniga oo shaqadaas tooska u haya aad iyo aad ugu mahad celinaa ciidamada mar labaad iyo mar saddexaad annaguna garabkooda ayaa taaganaada dhiibgaaray oo dhaawaca waxaan u gurma doonnaa haddana isbitaaladan ku booqannay inta haftana waa booqan doonnaa haddii alla idmo wixii ka badan familkoodana annaga wax ka qaban doonna